Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So fraction is 8. We're adding simple fractions. Add simple fractions. Waxaan isku daraynaa fraction simple ah oo laakiin unlike denominators hoosta aan ka sinnayn baan rabnaa inaan isku darno. Examples baan samayn doonaa marka ugu horeysa, laakiin waxaad samaynaysaa multiply numbers with one side only. nooca koobaad type 1. type 1 waxaa weeye hal dhinac keliya baynu wax ku dhufanaynaa ka samaynaa. maxaynu ka wadnaa example halkaan la nimaadno example inoo keen. Example waxaan niri 3/10 waxaan ku darnay 1/5. marka labada dhinac base waxaan denominatorska ka dhigaynaa equal, hoostan equal ka dhigaynaa. saa uga dhigi karna hal dhinac kaliya ku dhufanaynaa. 10 halkaasaan noo 5taasaan 2 ku dhufanaynaa, halkaan 2 nooga dhufanaynaa, sooma? Okay, hadda marka maxay noqonaysaa 3/10 plus maxay noqonaysaa kii kale muxuu noqday 2/10. sheekadu waa xiran tahay. markaasi waa simplify garaynayna. marka waxay noqonaysaa, waxay isku noqonaysaa 5/10 taasoo la mid ah maxay la mid tahay 5/10ka. 5/10ka waxay la mid tahay 1/2. waayo 5 baa u qaybin ka dhaa halkaana 5 baa u qaybin ka dhaa. simplify hadda ma baranayno, hore usoo bara. hadaad hore usoo baran ku noqo. example kale ku celinaa, mid kale aan ku dhufsano. example kale, for example waxaan niri example 1 aan dhahno, kan 2 aan dhahno, nooc kale aan dhahno ka waran haddaan dhahno 2/3 plus haddaan dhahno 2/9 waa ujeednaa halkaan dhinac baan waxaan ku simi karnaa. halkaan dhinac nago 3 ku dhufana 9 bay hoos noo noqonaysaa labadaba. kor hoos maxay noo noqonaysaa 9. markaa soo koobaynaa hoos 9 iyo 9 bay noo noqonaysaa. marka midkood baan kasoo qaadanaynaa, soo miyaan ahayn? korna 2 3 ku dhufo waa 6 plus 2 8. kaa mix number markaa u bedesho isu qaybisid 9 kan u qaybisid. haddaad 10 kaa noqon 10rada hore farq soo samee 1/, halkaan kale ma samaynaya mar dambe 1/8 bay markaa mixedka laga dhigo oo la fududeeyo noqonaysa 1/8. gadaal oo noqon kartaa saa isu jeega 8 times 1 8 plus 1 9. 9 hadii loo qaybi waa hal iyo hal baaqi oo soo haray. okay, marka labada dhinac marka hal dhinac baad ka simnay fractionkii uu noo simay. noocan soo socda haddaan aragno uu ka duwan yahay kii hore. noocan basiskan kala bedel. markaan labada dhinac waa kala duwan yihiin. ka soo qaad tan oo kale nooga soo qaad. haddaad ka soo qaadno 3/4 ka soo qaadno example 1 noo soo qaad. haddaan soo qaadno aan dhahno 3/4 haddaan dhahno 3/4 saddex afar loo qaybiyey. haddaynu ku darno 2/7 maxaa dhici lahaa? kan oo kale waxaan leeyahay just switch bases. labada base baa is dhaafinaysaa. si kale oon ku simi karno malo. si ugu easysan waa simple fraction. kaana waxaynu ku dhufanaynaa 7, kaana waxaynu ku dhufanaynaa 4. midkii kale ku dhufana. marka haddaad hoos ku dhufatay korkana isku iloomin, astaghfirullah alcadiim. haddaad korkana ka sax maxay noqonaysaa marka hoosta waxay noqonaysaa, korka waxay noqonaysaa 21 loo qaybiyey 28 kan hore oo lagu daray maxay 8 loo qaybiyey 28. kulli waxay isku noqonayaan 29 loo qaybiyey 28 loo qaybiyey 9 loo qaybiyey 28 andhuudhe iska tirkaas loo qaybiyey 28. marka taas waxay noqonaysaa 1 whole number 1/28. miyaynan hayn? haye example kale ku celino. example xoogaa wadno deen qaad. example 2 halkaan ku koobaynaa. halka example 2 number 2 aan dhahan halkaan ku samayno. example 2 haddaan damcayna aan samayno ka soo qaad. waxaan dhihi karnaa number kale noo soo qaad oo la mid ah asaga la mid ah 3/2 mid sahlan. 3/2 gaaban 3/2 because principalka inay fahamtaan waa plus 1/5 labadan waxaad ku walaalayn kartaa baseka isku mid kaga dhigi kartaa inaad switch garaysid. kana aad ku dhufatid midna aad ku dhufatid 5, kana aad ku dhufatid 2. waa soo dhaafinay. marka korna 2 ku dhufo, kana korkiisa 5 ku dhufo. marka wuxuu noqonayaa 15 loo qaybiyey 10
oo lagu daray 2 loo qaybiyey 10 taa waxay noqonaysaa 17/10 waxay la mid tahay 7kaa soo hori doono soo maaha 1 whole number 1 over waxay noqonaysaa 1 whole number 7/10 10 times 1 10 plus 7 17/10 waa kaas taas halkaa ha marto waayahay halkaa marka exercise badan hadaa rabtid mastery.com tag insha allahu meeshaas ahab inuuna wada qaado dad badan baa soo gala hadda waana hagaajiyey insha allahu tacaala casharadan oo ku wadaya halkaas kaaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu